Asalaamu calaykum. Ku soo dhawaada xalqa kooban oo aan kaga hadlayno dhowrka xuduud ee ugu khatarta badan caalamka adag tahayna in la isaga gudbo. South Korea iyo North Korea. Labada Korea waxay wadaagaan xuduud dhan 150 ilaa 160 mayl. Haddaba maxaa ka dhigay xuduudkan mid halis ah? Waxaan filayaa inaad isweydiinayso. Haddaba labadan waddan waxaa dhex maray dagaal aad u khadhaadh oo galaaftay nolosha kumanaan qof, sidoo kale hanti badan oo ku burburtay. Waa xuduud aad loo hubeeyay labada dhinacba oo ay joogaan ciidan aad u badan, taankiyo dagaal, miinooyin ku aasan dhulka. Dagaalkii labada Korea wuxuu dhammaaday 1953, waxayna ku heshiiyeen waddan waliba in ciidankiisa dib uga raraan xuduudka oo la sameeyo aag ka caagan ciidanka. Inkastoo labada Korea ku heshiiyeen xabad joojin waqtigaas, haddana ilaa iyo maanta ma aysan saxiixin wax heshiis nabadeed ah, taas oo ka dhigan in labada dhinacba teknikaali ahaan dagaal ka dhexeeyo, xabad mar waliba ay furan karto. Korea 1950. Under American leadership, the United Nations went to war for the first time. Xuduudka Bakistan iyo Hindiya waxay wadaagaan xuduudan 1800 oo mayl, waana mid ka mid ah xuduudaha ugu khatarta badan caalamka adag tahayna in la isaga gudbo. Waxaa dhex maray dagaallo dhowr ah oo salka ku haya arrinta gobolka Kashmir oo ay Hindiya xoog ku haysato. Labada waddanba waxay ku hubeysan yihiin hubka waxkumaada ee nuclear-ka, waana taa sababta looga cabsi qabo inay isku adeegsadaan hubkaas mar waliba. Xuduudka Mexico iyo Mareykanka waxay wadaagaan xuduud dhan 1950 mayl. Khatarta ugu weyn waa dhanka mukhaadaraadka iyo muhaajiriinta ka imaanaya dhanka Mexico. Dhimashada ugu badanna waxay ka timaadaa dagaal dhex mara booliska iyo gaankiiska wada daroogada iyo dadka muhaajiriinta ee u gudbaya dhanka Mareykanka. Xuduudka Hindiya iyo Bangladesh. Labadan waddan waxay wadaagaan xuduud dhan 2550 mayl, mid ka mid ah xuduudaha ugu dheer caalamka ee laba waddan wadaagaan. Marka aad fiiriso xuduudkan, waad ku wareeraysaa. Waxaad arkaysaa dhul Hindiya leedahay oo uu ku wareegsan yahay dhul ay leedahay Bangladesh, waxaana ka dhaca badanaa isku socod sharci darro ah, dad badanna ku dhintaan. Yemen iyo Sacuudi Carabiya waxay wadaagaan in ka badan 1100 mayl. Khatarta ugu weyn waxay ka imaanaysaa Xuutiyiinta iyo muhaajiriinta sida sharci darrada ah ugu gudbaya waddanka Sacuudiga. Sanadihii u dambeeyay, Sacuudiga iyo isbahaysigiisa ayaa dagaal ba'an kula jiray Xuutiyiinta Yemen. Waa laba waddan oo Carab ah, laakiin farqi weyn u dhexeeya dhanka nolosha. Sanadihii u dambeeyay, Sacuudiga iyo isbahaysigiisa ayaa dagaal ba'an kula jiray Xuutiyiinta gacanta caasimadda Yemen ku haya, halka Xuutiyiinta gantaalo ku garaacaan xarumaha shidaalka ee